soo dhawaada waxaan jecel lahay in labada ummadood ee walaalay ay isu furmaan maadaama aanu ka shaqaynayno gateway-gii berbera corridor insha Allah dekedana aanu soo tus doono ta noo shaqaysa hadda iyo ta cusub ee aanu dhisaynaba muddo dheer aynu ka shaqaynaynay in xiriirka guud ahaan Ethiopia gaar ahaan kilinka Oromiyo inaan wada shaqayn dhow yeelano mid dhaqan dhaqaale haddii aan yaroo faahfaahin ka bixiyo dekedeedu waxa weeye deked international ah deked bilaa wadayna ma shaqaynayso waxaan in muddo ka shaqaynaynay sidaan isugu furi lahayn albaabka weyn ee Ethiopia gateway-ga markay dhamaato wadadu haddii alla yidhaa soo tus doono ka socda deegaanka Oromiya ama dalka dadweynaha Ethiopia kusoo dhawaadana leenahay gobolkii saaxil degmada Berbera aad bay farxad weyn ugu tahay dadku kale markay cusub yihiin oo ay meel booqdaan waa la sooreeyay xun baa lagu soo dhaweeyaa markaa madaxweyne ku-xigeenka Oromiya waxaan kusoo dhaweynaa Berbera inay degto halkay guriga ka dhisan lahayd oo badda dhinaceedana aan kusoo dhaweynaa aad baan ugu faraxsanahay maxaan ku dhahay maatikiina waayo sidoo horeba maareeyuhu uga dhawaajiyay waxa in badan nagu soo noqday oo xiriir badan aan lahayn ismaamulka Soomaalida Ethiopia maantana haddii ismaamulka Oromiya oo socdo waxaan leenahay gamco furan ku soo dhawaada waxaan filaynaa inaad arki doontaan meelo badan oo maxaan ku dhahay ganacsigiinu maxaan ku dhahay idinka gudbi doono runtii ujeedada ugu weyn aynu ka leenahay waxa weeye inaynu inagu service baynu haynaa deked baynu leenahay iyaguna dadkii oo badan bay hayaan marka inaynu inaguna servicekeena ka iibino iyaguna ay dadka marka inaynu iska kaashano dadku isdhex galaan ayaa ujeedada ugu weyn ee laga leeyahay tahay marka walaalaheen mar waa walaalaheen xiriir wanaagsan baynu leenahay oo saaxiibtinimo oo diblomaasiyadeed marna waa ganacsi marka safarkoodan ujeedadiisu waxa weeyaan muxuu ahaay regional integration-ka dhaqaalaha isdhexgalka dhaqaalaha ayuu muxuu ahaay daaran yahay marka inaynu soo dhaweyn wanaagsan la nimaadno oo macmiilkaasi wanaagsan ugu adeegno dekedeeni waa la balaariyay waana strategy oo taas waa la hubaa inay dekedaha ugu strategisan ee gobolka ku jirto laakiin waxaaba muxuu ahaay ka sii muhiimsan khadamaadka iyo service-ka aynu bixino creating in one country but unfortunately living in two different countries. I feel like that. Thank you for your hospitality. Somaliland is very near, not only for our neighbor, ours is also thinking that we are the owner of Berbera Port. You are working day and night. This is really, I appreciate this hard working. This is good opportunity for two regional, our region especially. After this construction is completed, we may be very much happy. This is facilitating economic cooperation between two countries. This is good opportunity for us. We feel at home. We are from one family. Thank you so much for your hard working. Thank you so much for your hospitality. We love you.